بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada channelka Yasmin Style Tube maalin wanaagsan subax wanaagsan maasha Allah saxaabteyda qaaliga ah kusoo dhawaada mar kale iyo video cusub halkaas canjeera ii qasneed way soo qamiir dhaaftay ukunaa ku daray laba xabo ukun intaasaan marka isku qasaya si fiican isku dhexgelinaya intaanan dubin marka maasha Allah sidaasaan u qasayaa inay ukuntii iyo wixii isdhexgalaan dabka waxaa ii saarnaa jalmad shaax aan ku karinayay biyihii sokortii markay soo karkareen waxaa ku soo daray qolfo heel iyo dhegayaro isku shiidan waxaa ku daray caleentii daboolka saaraya dabkana waa ka daminayaa marka insha Allah halkaas birtii baa noo soo kululaatay canjeero duwowgeeniyaa galnay canjeeradeeda quruxda badneed maasha Allah canjeero la-aanteed waa abaaryaa ilmo korisaa la dhahaa alaabtaan ilmahay kula korinaysaa anigana halkaas waxaa ku qasanayaa kafeygii laisku cateynayay oo fiidiyoyadeyda hore waa kusoo aragteen umaleynaa kafeygaasa soo qastay calooshuu bixiyaa maasha Allah af bilow buu ii yahay canjeeradeyda intaan dubanayo asagana waa iskasii kakabanaya asagoo qandac maasha Allah sidaasaa canjeeraday usoo dubanaya jawi degan canjeero qurux badan jawi qabow roobaad maasha Allah alxamdulilah intaa haysanin ilaahay ha siiyo codkaygana ka raali noqda hergebkii la dhahayay aroosay saanuuba ku rooyahaybo waa isqasbayaa alxamdulilah laakiin caafimaad hadaa la qabo waa alxamdulilah marka sidaas quruxda badana canjeeradeyda usoo dubanayaa baliis waxaan iga codsanayaa haddaa tahay markii ugu horreysay oo videoga kaasoo horbaxayo subscribe-ka igu sharaf like-tana ii saar commentna hoos igu reeb aadaan u mahadsantihiin asxaabtaadana u sheergaree si oo saaxiibaadi camal aan u helo marka waa mahadsantihiin inta kale oo ila joogi jirtayna waxaan iga codsanaa inaa like ii saartaan comment qurux badanna hoos iigu reebtaan maasha Allah ani dhiirigelin bay ii tahay marka alxamdulilah soo dhawaada halkaas dee waxaa waaye qurac kariskeyga iska wataa jawigeyga ii degan alxamdulilah canjeero badan ma sameyneynin saa ujeedaan ilmaha bisaa u sameynaye anigana xoogaa yar ilmihii quraacda markaan soo siiyey subagiyo shaaxay ku jecel yihiin walaa maraq walaa beer waxaa shaqadooda maaha marka waxaan soo qaatay wax yar hal sacab oo beer cusbaa ku soo daray iyo saliid yar oo meel dheer markaas saa u shiilo alaabtan soo tijaabiye macaankeeda lagama sheekeyn karaan idhahay waxaa waaye beer markaa saa usoo shiilo cabaar uu wixii dhiigdhiiga ka baxo uu soo yar bislaado yaa bataati macaan waay alaabtan bataati macaan biyo kusoo kariyey yaa rabaa iyo beerka inaan isku dallaco marka macaan ba aheed wallaahi aad baa oga helay soo tijaabiya idinkana meeshaan waxaan kusoo basalaa kusoo daray basashi markaan waxyar ku shiilay waxaa kusoo daray bataatigii oo si fiican si yaryar aan usoo jaray bataatigii macaan waaye beerka dhanaan waaye kaaliska arag dhanaan macaan isku jiro waaye marka ani waa ka helay kolley aad buu iila macaan badnaa waan soo diyaarsaday intan hadda aniga waa quraacdeydii ani quraac late quraac daahday oo qado u dhow iyo casho oo caali yaan cunaa maalmahan laba waqti yaan cunto cunaa maalinkii inta kale biyaa cabaa xooga yaroo daayad baan galay markaan quraacday onlinekan ka dalbaday alaabtan oo iisoo aan doontay iyo adeeg kale aan soo doontay waan soo laabtay hadda sidaan waxaan tusayaa alaabtii aan onlineka ka dalbaday marka hore onlinekan
saddex shay baa ka dalbaday. waa xariga jaajarka xariga jaajarka waxaa waaye midka caaga ee ilmaha qaqaniinaanoo way iga haleeyeen, way qaqaniinayaan. marka kana onlineka ku arkay aaduuna u dheeryahay, adoo jaajarka kugu jiro telefoonka waa isticmaali kartaa. marka aaduu u dheeryahay mana la qaniini karo. xariga waa dundun, wax dundun camal waaye. ilmaha waa ogtihiin waxyaabaha yaryarka inay qaqaniinaanay jecel yihiin. jaajarkii qaniinjaan nagta lagaga saaray, kanaa marka kusoo bedeshay. kan inuu i anfici doonaa rajeynaa, uu ii shaqeyn doono. maasha allah, xarigaas baa u horeeyey waxa soo baxay. waxaa labaadoo soo baxay aan isla aragno. waxyaaba aan u baahnaa oo markaa daruuri ii ahaa waaye, waxaan dalbaday. kan waxaa waaye airfryerka aa la dhexgelinaa si ay saliidana ooga daadaadanin, uu nadiifna kugu ahaado. yacni kaalmaati camal waaye, siliconna waaye, caag ma aha oo dabka gubayo, silicon waaye. so mar walbo aluminium intaa saarto ka bixinaysa tuuraysa, kanaa ku dhamaa. kan markaa cuntada ku karsato, chickenkaada iyo fiishkii wixii haddaa ku dubato isagoo sidiisa marka waa ka bixinaya, waa dhaqani meelaa dhigani, adhow next timena waa isticmaali. kanna waa kii iigu muhiimsanaa isagana. daboolka waxaa waaye microwave markii cuntada la geliyo lagu daboolaa markaa cuntada kululeysanayso. soo kanna saas waaye, isagana caag waaye laakiin microwave safe waaye. so waxaa baakadaasa lagu soo xirxiray si uu u buusbuusmin. way kasoo taxadareen maasha allah. waan soo furayaa, baakadaasa ka furayaa. isagana saan uu egyahay, gacantaas iyo wuxuu wataa baalkaas yar oo kor la gelinayo. gacantaasna waa gacantii la qabsanayay markii daboolka laga feedayo. gacantiyaa kusoo dhejiyey saa ujeedaan maasha allah. cuntadaa gelini, kanaa ku dabooli, kadib aa daari. saasaa ugu dabooli cuntada markaa microwaveka geliso. bas maasha allah, cuntadana way ku kululaani, waxba wasaqna kaama gelayso iyo jamska. saddexdaa shay aan onlineka kasoo gaday. wixii kale oon soo gatay waa kan heel qorfa iyo dhegayare oo isku jiraan waaye. inta waxaa waaye masagaa la dhahaa alaabtaas. masagadana dee lagama sheekeyn karo. kanna waa qamadi ama sareen. kanna waa digir gaduud, digirta cambuulada laga karsado waayey. saddexdaas shay. kanna waa timir, wax yaryar oo adi iga dhinnaa baan soo iibsaday. liin dhanaan iyo bahalkana waa u baahnaa, kii hore wuu iga halaabe. kan waa midka dhuxusha unsiga lagu shido, lighter waaye. kaasna waa kaa. waxaa kaloon soo gatay xawaaji isku dardar waayey. xawaaji isku dardar, xawaajiga oo bariiska wax kastoo ku darsan kartaa. koley ani hal xawaaji unbaa wax walbuu isticmaalaa. xawaaji waa xawaaji. kanna waa sanjabiilka qoyan oo freshka ah. kanna waa loosas iyo sabiib isku jiraan, dhowr loos iyo sabiib. kuwaasna waxaa waaye anaa iska leh. heel extra ah iyo dhigayaro aan kusoo darsaday. alaabtaas qorfaha aad ugu badan, heelkii qorfahana waa kusii darsan doonaa markaan shiidayo. xawaajigii baan aan ku shubayaa dhaladiisii si uu dhaladiisa si ay igu nidaamsanaato. wax walbo meeshiisaa ku shubaa, kadibna waa meel fiicanaa dhiganaa. waxaa waaye haddee bacda kuugu jiraan way dadaadanayaan, maanta dhan way dadaadanayaan. marka inaa wax kasta ku nidaamsadaanaada fiican. meeshan waxaa waaye kan waxaan kusoo shubay
xawaaji horaa ku jiray intaas waxaa waaye bilooyinay haynayaan bilooyin bay hayni doonaan insha allah haddii ilaahay noo qoro. Marka caagi timirtan soo qaaday, timirtii hore oo ku jirtay yaan ku shubay daboolkii aan ku gediye, tan cusub hadda aan soo gadaan ku shubay, midda kale koraa ka saaraa si oo tii hore loo cuno ay u dhammaato. timirtana intaas waayay maasha allah. caagan yaraa soo qaatay waxaa kusoo shubayaa loosaskii iyo sabiibkii, kaasagana intaan ku shubanayaa si oo waqtigaa u baahdo wax yar aan uga soo qaato. waa dhowrtaas xabo waxaa waaye 2 nooc oo zabiib ah iyo 3 nooc 4 nooc oo loos waaye iyo bocorka mirihiisa. maasha allah alaabtan dee lagama sheekeyn karo ayadana, waxaa waaye aaday u fiican tahay. intaa macmacaan u cuni lahayd inaa kaas cuntaa fiican. bahashan caagana usoo qaatay, caagana ku guranayaa, then daboola saara, armaajada geeska gelinaya sababtoo ah inay iga dadaataan marabo markaa isticmaalayo. hadhow waa tartiib waa soo bixina, afkaa ka fura, waa ka shubana intaan karsan rabo, inta kalena waa xareysanaa.